الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. meesha aan joogno maanta waa wasaaradda beeraha. maxaan ku irahdaa waxaan rabaa inaan xoogaa duubno ama lix nooc oo ka mid ah khudaarta oo Soomaaliya ka baxda qaarna inay cusubta waa laga yaabaa. meesha horta aan taaganahay guriga laga dumiyay marka meel dhagax iyo maxaa shamiinta iyo ku turtay ahayd cagaf baan gelinay cagaf marka galin ciid waxaan ku shubnay dhaway ciid guud baan ku shubnay marka ka bacdi waxaan beernay lixda geed oo hadda ka hadli doono. waxa ugu horeeya koostada aan dhex taaganahay sida aan naqaanana koostadu waxay ku baxdaa taqriiban 45 bari diyaar bay ku tahay wixii ka dambeeyana guritaan hadda maada saad aragtaan meesha hadda iga horeyso oo leenka dheer ah koosta ku wada beerneed waa la gurtay dadka gurtay maadaama waqtigeedii la gaaray hadda intaan ka dambayso ilaa halkaan waa ayda waa diyaar laakiin insha Allah waxaan dadka u fasaxaynaa si ay u gurtaan sida sababta koostadu waa saan sheegnay muddo 45 bari ku baxdaa oo lagu goostaa waxa marka aad ogtihiin fawaaid badan ay koostadu leedahay wax yar baan ka soo diyaariyay aan badnayn. waxyaalaha ugu horeeya waxa kamid ah horta inay maxaan ku yiraahdaa ma yaanihi waxyaalahan duhunta iyo waxyaalahaas oo dhan way la dagaalantaa waxa kale oo kamid ah inay ku jiraan fawaaid badan oo fiitamiinad iyo borotiinad iyo maad kale oo maxaan ku yiraahdaa jidhka anfacaya ayaa kamid ah waxyaalaha laga helo. maxaan ku yiraahdaa against disease waxa kale ay maaragtay bakteeriyada caloosha iyo funguska iyo maxaan ku yiraahdaa waxyaalaha noolaha ku dul noolaha kale waxaas oo dhan way la dagaalantaa. marka waxay kale dhintaa pressure-ka way dhintaa oo dhiigga sokorta way yareysaa fawaaiddaasi fawaaid badan oo la koobi karin bay leedahay sidaa daraadeed maadaama aad aragtaan inay ka baxayso meeshaan oo weliba si fiican u baxday dhulkuna uu ahaa dhul aan beero ahayn guryo laga dumiyey waxaad garan kartaan meel kasta oo dhul ciid u munaasib ah haddii loo sameeyo inay muddo yar ay kugu siin karto maxaan ku yiraahdaa waxyaalaha aad uga baahan tahay sidaa daraadeed dadka Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan waxaan kula dardaarmaynaa koostaan oo muddada yarna ku kooban ka soo baxayso fawaaid badan lagu qabo maxaan ku yiraahdaa inay beertaan oo maxaan kaga deeqtoobaan inay ama suuqyada iyo meelaha kale ay gurigooda ku beertaan oo kaga maarmaan. marka haddaan ka soo baxno inta haddaan uga baxno koostada haddaad fiirisaan hadda hal mar baan goynahayaa waa hal geed weeye waa u jeedaan waa hal geed waaye halkaa geed intuu yacni kama yaro inta hadda suuqa ama doolar lagu gado ama wax ku dhow lagu gado sidaa daraadeed markaad beertid wax yar oo koosta ah oo halkii geedna intaa ka heli kartid marka waad garan karaysaan maaragtay fawaaidda iyo dhaqsaha muddada aad yar oo kooban aad kaga heli kartid wax ku anfaco qoyskaagana ay kaga maarmaan inay suuqa aadaan oo lacag badan looga qaato. midda labaad wax badan oo nafaqo badan kaagama baxayso buufid badan kaagama baxayso. midda labaad oo aad ugu muhiimka oo rabnay inaan dadka ogeysino beeralayda ama dadka ka faa'iideysanaya koostaan maadaama caleentooda la cunayo waa inaan chemical muddo bil ka yar ka badan muddo bil ku siman ka hor in lagu maartay chemical wixii ka dambeeya intaas inaan la buufin si aynan dadka ayna maartay dhibaato u geysan. marka taas waxaan kaga baxayaa koostada ayaan kaga baxayaa. hadda waxaan ka soo hadalnay koostadii iyo waqtiga ku baxayso iyo maxaan ku yiraahdaa iyo fawaaiddeeda in kooban. kan waa carrots waaye ama dalcasaymi dadka qaar u yaqaanaan soo maranaya asagu aad uma dheeraan sidii kuwa uma dheeraanayo laakiin waad aragtaan soo soo baxay isagana dadku waqti baan beernay laakiin asagu waqti ka dheer taa ay kaarootada lagu ku soo go'ayso ayuu qaadanayaa. hadda ma soo siibi karo weli bayna samaynin buruqdii loogu talagalay ee la cuni lahaa. marka hadda waxay taqriiban beeran tahay waa 2 bilood iyo nus bay koostaas beeran tahay yani taqriiban 2 bilood beeran tahay kana 2 bilood uu beeran yahay. marka sidaa daraadeed kan xogaa waqti dheer buu yara qaadanayaa. karootadana fawaaiddeedu waa garanaysaan inay maaragtay ay aad u faa'iido badan tahay aan la koobi karin weliba. marka sidaa daraadeed waxaan isku dayayaa inaan soo dhigo page-ka ama se ay si kooban ayadoo kooban u soo qoro. marka hadda haddaan idhaahno waa qaad waqtigaan nagu yar salaadina waa nagu dhowdahay. marka waa carrots waaye masha Allah fawaaiddeeda iyo waqtiga qaadataba waxaan soo qori doonaa insha Allah billahi karim mar dhow baan soo qori doonaa oo soo dhigi doonaa waa karadaan wax ka soo taabto. kaarotada waxay caawisaa tiro ay qalbiga ay caawisaa waxa ku jirta maadada yala potassium maadaas aad u faa'iido badan oo caawinayso qofka barashirkiisa. waxa kale oo kamid ah waxyaalaha laga helo
bismillahi raxmaan waxaa laga helaa waxay xoojisaa manaacada amase waxyaalaha jirka soo weerarahay inay ka hor istaagto ayay xoojisaa waxaa kaloo ay maaragtay vitamin C baa ku jira iyo A baa ku jiro ilkaha way u fiican tahay jirkana waxay kaloo caawisaa sokorta dhiigga way maaragtay way yaraysaa waa kaashanaysaa waxay kaloo caawisaa maxaan ku idhahdaa brain maskaxda caafimaadkooda ayay qayb ka qaadataa waxaa ku aad ugu badan ironka vitamin C vitamin E K iyo magnesium intaba waa ku badan yihiin sidaa daraaddeed iyo waxyaaba badan oo aan hadda meesha ku soo qori karin sidaa daraaddeed kaarootada faa'iideeda way badan tahay laakiin hal muhiim baa ayna ku jirta qudaarta ama ha ahaato qudaarta caleentada la cunahay ama ha ahaato tan ciidda oo sida kaarootka waxaa muhiim intaadan cunin inuu qofka aad isaga dhaqo si looga fogaado inay dhibaato dadka u keento maadaama ay jirooyin badan ciidana ka soo qaadan karto korna looga yaabo inay ayna jirooyin ka qaado marka sidaa daraaddeed qudaartoo dhan markaad cunaysid waa la iska dhaqaa marka ka bacdi baa la cunaa waxaana lagala dagaalamaa oo laga fogaadaa in la buufiyo waqtiyada la goosanayo muddo u dhow in la buufiyo ama kimikaal lagu buufiyo wax lagu buufiyo marka halkaasna kaarootka kaga baxaynaa geedkan waa xulbad weeye waxaan u malayn dadka in badan xulbad beeran maayna arag laakiin miraheeda iyo way arkeen ayadoo maxaan ku idhaahdaye cunideeda way arkeen laakiin waa tan mirihii waa kuwaas insha allah wiilku wuu duubi doonaa si ugu soo dhawaan doonaa marka xulbadda maasha allah ayna sida 2 bilood taqriiban iyo bar bay beeran tahay waadna aragtaan miraheeda iyo siday u soo baxday insha allah waxaan rajaynaynaa inay maaragtay ummadda soomaaliyeed wax badan oo bannaanka ka keensadaan inay gudahooda ku beeran doonaan kana deeqtoomi doonaan inay bannaanka ka keenaan marka waa xulbad waxaan naga dambeeyo dhan waa ayada haddii si fiican bay miro u dhashay haddii hadda aan soo qaadano waa kan geedkan soo rujiyey waa kan waxaa dhawa miraheedii waka afarta koonada ka tirsan wada miraheed waana buuxdaa gidigooda way buuxdaa marka ogaada inaad xulbad beeran kartaan adoo gurigaaga jooga ama beertaada jooga oo u baahanaan doonin insha allah inaad bannaanka ka keensata mar dambe waana mirahaad beeraysaa waana sida dhib badanna ma qaadato oo maxaan ku idhahdaa kaaroodka marka la beeray waa kan weli waa ma soo yani diyaar maaha ayadoo laakiin muddo yar gudaheed ayay maaragtay diyaar kugu noqotay 2 bilood bar gudahood marka wakaasa u jeedaan waxaasoo dhan waa ayada weli waxaan ku dhex jirnaa khudaartii aan ku beernay wasaaradda beeraha marka geedkan waa basbaas waxaa ka dambeeya waa barbarooni waxaa ka dambeeyana waa geed ay dhahaan eeg balaanta amase baadanjaan suu qof walba u yaqaano bismillahi raxmaan raxiim marka haddii marka aan soo qaato geedkan waa basbaas waad u jeedaan mirihiisa kulli waxa meesha ku beeran saas ma haddana muddo taqriiban 2 asbuuca waa la guranayay wuxuu beeran yahay islaam muddada aan idin sheegayoo 2 bilood oo barka uu beeran yahay marka waxay ku tusaysaa marka haddaan isku soo koobno inuu dhulkeena dhul qani yahay ciidiisu qani tahay jawigiisu uu jawi fiican yahay oo u munaasab ah in wax kasta oo in badan lagu beero marka waxaan leeyahay marka anigu tijaabay naga ahayd inaan meesha ku tijaabino ummaddana aan barna inay dhulkoodu ka faa'iidaystaan hadda meeshaan oo kaleeto wax yar dhawe geedkan oo kaleeto hadda fiirsid wakaas ama kanaaba ku filan baadoo meel kale aadin marka waxaan leenahay dhulkeena waa qani dad ka shaqaysta ayuu u baahan yahay dibad iyo maxaan ku idhaahdaa in ayadoo wax laga keedsan ayaan ilaahayna tala saaranaynaa awooddeedana suu geynaynaa waxna ka soo saaranaynaa marka inta caajiska iyo la iska dhaafo maxaan ku idhaahdaa gacantaaga bani aadan loo gacanta hoorsanahayo waddankeena aan beeranno aan wax kala soo baxno isku filnaanno iska dhaafo inaan isku filnaanno keliya dibadda ayaan u dhoofin karnaa marka wax yar baan ku yardan waxay tahay ayaan baa meel waxaa laga qorsheynayay carabta meel ka mid ah laga sheekaynayay soomaaliya ama caalam carabi waxaa lagu yidhi soomaaliya haddii keliya la beero caalam carabi oo dhan way ku filanta wayna ka badan tahay sidaa daraaddeed waa kana khayraadka waddankeena allahana tuso allahana naga dhigo kuwa ka faa'iidaysto waa barbarooni maxaan ku idhaahdaayeen iskumar baa la beeray meeshaan waxaa horta iskumar baa la beeray waa u jeedaan mirihiisii muddo adigu asbuuca taqriiban waa la guranhayay oo dadka waa isaga fasaxnay maadaama baahi ay ummadda u qabto marka dadka shaqaalaha beeralayda iyo asaga iyo basbaaska iyo kulli waa maxaan ku idhahdaa waa kana waa maxaan ku idhahdaa waa beeran yahay
haddii hadda kan soo rujino oo soo qaadano waa kana wuu maxaan ku idhaahdaa inkastoo uu yar yahay laakiin mirihii wuu bilaabay si fiican buu u bilaabay waadna u jeedaan marka muddo isku muddaa la beeray 2 bilood iyo bar buu beeran yahay marka sidaa daraaddeed waxaan marka waa kuwaan inkastoo uu yar yahay laakiin haddana muddaa la guranayo xabadii soo weynataba waa laga guranayay marka asagoo gaaban buu si fiican miro u dhalay marka wakaasaa wuxuu la socdaa khudaarta aan ku beernay wasaaradda oo leenahay dadka ka faa'iidaysteen ana arkeen sida maartay wadankooda uu khayraadka u buuxo laakiin khayraadku wuxuu u baahan yahay lala soo baxay oo iska soo baxay asaga sida darteed shacabka Soomaaliyeed ha u istaageen maxaan ku yiraahdaa beerashada wadankooda iyo kala soo baxaan khayraadka ku kaydsan wadankooda bismillaahir rahmaanir rahiim geedkan waa baadanjaan ama egg plant hadda si loo yaqaan carruurta baadanjaan bay yiraahdaan ingiriiska egg plant yiraahdaa waxay dhahaan dadka qaarkood ninkii geedkan haysto hilib uma baahno marka waxa laga samaysan kartaa asaga inta la shiiro la waxeeyo ayaa suuga laga dhigin karaa ceeshka rootiga ama saxan ku cuni kartaa marmarka qaarkood kuwa weyn baa jiro balbalaaran inta la dalooliyo caloosha gudaha laga dalooliyo ayaa bariiska iyo hilibka lagu formaat laga dhigaa marka geedkan aad buu u fiicay hadda Soomaaliya uu soo galay waa badan yahay waa kan meel kale oo si fiican ugu beerayna waa jirtaa laakiin kana hadda miro dhalay kuwa kale miro aad uma dhalin marka geedkaasna waa sidaas loo faa'iideysana wax la soo koobi kara ma aad buu u fiicay markii dhirta la qaybinayo family ama caa'ilo ayaa loo qaybiyaa caa'ilada wuxuu raacayaa yaanyada iyo barbarooniga iyo basbaaska waa iyo geedkan egg plant kullu waa isku family hal family isla yihiin marka waa kan wuxuu kugu fiican yahay kan kale miro badan wuu dhali halkiisa mir waxa laga yaabaa 2-4 xabo inuu kiilo ku noqdo laga yaabaa marmarka qaarkood ku waaweyn 2 xabo ama 3 xabo kiilo ku noqonayo marka haloo dhugla haloo dayma lahaado nafaqada iyo faa'iidada dhulkeena iyo khayraadka ku jiro sida loola soo bixi lahaa loogana deeqtoomi lahaa waxyaalaha aan u dhuuntaagayna ama hay'ad ha bixiyeen ama dad kale ha bixiyeen marka aan shacabka Soomaaliyeed waxaan anu ku boorinayaa wadankooda khayraad badan baa ka buuxo dhul dahan jawi fiican oo wax walba oo munaasib ah maxaan ku yiraahdaa yeeleeyihiin xataa guriga waa lagu beeri karaa dad badan hadda waxa jira beeray oo ka deeqtoobay inay suuqa ka raadsadaan maxaan ku yiraahdaa khudaarta